dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa loola jeedaa siraacii weynaa ee 1914 ilaa 1918 ee u dhexeeyay xulafooyinkii bariga ku loolamayay siyaasadda adduunka. laakiin dadkii xilligaa noolaa ma ogeyn inay goobjoog u yihiin wax loo bixin doono dagaal adduun. magacu wuxuu baxay bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka oo ah 20 sano kadib dagaalkii koowaad, waxayna ujeedadu ahayd in hoosta laga xariiqo inuu bilowday dagaal weyn oo u dhigma kii 1914 iyo 1918. haddii aanu dhici lahayn dagaalkii labaad ee adduunku, dagaalkii koowaad ma qaadan lahayn magaca uu caanka ku yahay. marka lagu dhex jiro xaqaa'iqda xiisaha leh ee taariikhda, dadku ma arki karaan sawirka guud, mana garan karaan astaamaha lagu aqoonsan doono waayaha taariikheed ee ay sida maalinlaha ah la loolamayaan. casrigeena waxaa taagan 3 umuurood oo masiiri ah, lagana yaabo in jiilalka naga dambeeya ay ka dhigtaan bartilmaameedyo taariikheed. waa isbeddelka cimilada, saamaynta garaad gacmeedka, iyo suuragalnimada dagaalka saddexaad ee adduunka. haddii ay dadku ku guulaysan karaan inay midka saddexaad ka baaqsadaan oo la yimaadaan is-afgarad waayeelnimo ku dheehan tahay, labada horena waa lala tacaali karaa. laakiin haddii kan saddexaad laga baaqsan waayo, waxaa dhici karta inay basharka ka lunto wixii uu tabcayay 10,000 ee sano ee u dambeeyey iyo weliba ka sii daran. hubka nukliyeerka ah iyo tiknoolajiyada aadka u heerka sarreysa ee la gaaray dagaalkii labaad ee adduunka kadib, waxay mar qura wada ahaayeen halis taagan iyo horjoogsi gacan ka hadal. dhan waxay ahaayeen yihiinna halis weyn, maadaama haddii quwadaha ku hubaysanay adeegsadaan ay soo afjari karto ilbaxnimada basharka. dhanna waa hubka nukliyeerka dartiis sababta aanu weli u dhicin dagaalka saddexaad ee adduunku 80 sano kadib dhammaadka kii labaad. maadaama madaxda iskale amarka u dambeeya ee adeegsiga hubkan ay og yihiin inay ka dhigan tahay is-ciribtir laba geesood ah, waxay dooranayaan inay iska dhowraan la faracayaarka faraha badan ee dowladaha sidooda oo kale u hubaysan. ugu yaraan ilaa iyo hadda sidaa ayay dooranayeen. haddana marka la fiiriyo oday Putin, arrinta Ukraine, tan bariga dhexe iyo guurguurka juqraafi siyaasadeed ee waddamada adduunka, waxaa dhici karta inaan nahay sida shucuubtii nooleed bilowgii dagaalkii koowaad ee adduunka ee aan wax war ahba u hayn waxa jiilalka ka dambeeya ku asteyn doonaan maalmahooda hadduu jiilba naga dambeeyo.